marka ay hashu naga lunto 2-3 saacadood baan sugnaa intayna soo garaacaysa iyada telefoon sidata meeshii joognaa waa xirada garas gaabana geedi ee magaalada macaana ka cabto haashir riig baa la yiraahdaa waa shii tartanka lagu qaatay $5,000 12 koob baa laga lisaa marka qura la lisayo geelu tirada guud waa 315 halkan imika 5 baa ku xareysan dhalay halkaan in dhaqayaal ku xareysan hashaas waa shii geelan ka bilaabay iyo hasha kale fadhida habeenkii dhowr af baa laga hadlaa qof joogto halkan intimaada duwa kale dawladdu qolada dawladdu gooniye ka timi marka qaar baa iska dhaxlaayeen isku dawladda way safiiqaan kuwa qaar oo la isugu tirjo qaar xataa isku family waxa isugu yimaada aan safaqoon qolada dawladda ka timi hadana isku family isugu yimaada waxay Soomaalidu jeclaatay marka joogna waxa weeye halkii uu ka cunayay cawska halkan cawsku ka cunaa halkan buu qoorti ka ridaa waxaan u cunaa ciidamo miisto hal wala markay dirigtaa iskaga tagtaa halkan biyo ka cabba marka qaarka dambe biyo kula jira qaar korona cawsku kula jira horta dhibaatada ugu badan ee geela ummadda ka haysatay wuxuu ahaa lumista baalkan uu lumaa u dheereeya kolkii lumistiisa ayna dhibtay ayaan u fikiray inaanu lambarka ku dhigno kulka markii lambarka aan ku dhignay runtii wax aad baan uga nasanay hawshiisii uu noo shaqeeyay aadna waan ugu guuleysan waxyaabaha cajiib kale naga soo maray waxa kamid ah geelan ku soo iibsanay naasreed ayaa dib ugu noqdo naga lumay markii halkii tagay ma la soo garaacay lacag baan u diro baabuur baa loo soo kiriyay halkaas aan lagu keenay de lama heleen kuwani waa ku yaraa imkaan ku dhigay imkaan ku dhigno ku yaraa imka waxa uu cusub iyo arkaysa marka lambarka ku yaalaan waa Telesom weey shirkad kale maaha Telesom tan waxaan ku dooranay iyada saacad walba la helaya dadku dhammaan wada sitaan boqolkiiba 99 way sitaan marka maadaama dadku ay wada sitaan kay ag maraysaa oo kugu soo dhufanaya marka saasaan Telesom ku dooranay Telesom waa u mahadnaqaynaa maadaama ay adeegii ballaarisay marka ay hashu naga lunto 2-3 saacadood baan sugnaa intayna soo garaacaysa iyada telefoon sidata marka hawl yaraan buu noqday dadkina way taal yaraadeen oo geela ma daydayaan ma dayday karaan waxa faa'iido noqotay ninkii soo iska jiifay hashiisa soo garaacayso inamadu marka aanu sariirteeda jiifa ayaa geela marka xadka ka sareeya luma ay soo weydiinayaan laba neef baa naga lumay ma aragta miyaad aragtay in gurigiisa jiifo geeli hawdka la weydiinayo le ma aragtay laba neef baa naga lumay doona wuxuu maadhaa wali soo sheegay inta kala haya doona marka la soo sheegay la soo garaaco geela caynkaas ma ka maqan yahay halkee joogtaa halka kuwii kala la xiriirsiya war meesha caynkaas ninka lambarka leh orto ka soo kaxeeya iyaguna hawl yaraan bay ka heleen oo maba dhaqdhaqaaqaan anuu bay wariga sugayaan ninkani wuxuu iyo 2 nin oo kale 3 nin oo kale halka jooga waxay marti iga yihiin lambarka inaan u geeyo halkii lambarkan ka soo sameeyay marka halkan igu yimaadaan maalin boqol ay timaado san kaxeeya meesha geeya hashan waxa la ii sheegay ninkii aan ka soo iibsay horta $2,000 baa hal shaqaysan leeyga sii iyadoo yaro niriga ayaa $2,000 leeyga sii ladu jaamuus bay leedahay ladu jaamuus bay leedahay geelo jaamuus uu leeyahay waa jaamuusiga geela Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm here today at Garas Camel Farm because this is my first time coming here and I love it so much. It's the best place I've ever been to and the camels are so tall. I touched a tall camel and a baby camel. It was actually super fun and they didn't even fight back. They're actually very nice and if you guys come here yourself you'll understand that this is the best place. I tried camel milk and it was the amazingest milk I've ever tried. It's better than all the milks you'll ever even hear of. It's the best milk I've ever tried. You should really come here. This is a once in a lifetime opportunity so you guys should all come here to see these fascinating animals. Thank you very much.